cunugaaga haddaad lagu dhaho shan maalmood camping ilmaha geeya dadka madowga ay dadkaas dhan camping bay geeyaan camping inaad cunugaaga geyso inaad wax kale waxaa leedahay ma cunug waa saas uga noqonaa saas uga yeelaa saas uga waa because waxaad aaminsan tahay inuu dhalay yahay oo inuu kaa jabo aad aaminsan tahay waxaa rabtaa inuu guulaysto waxaad haysataa jacayl laakiin value iyo dadnimo ma rabta inaad ku darto that's why 20 jir 50 jir ilma joogay basementiga hooyadooda iyo ayadooda ay degan yihiin oo aysan rabin inay u shaqaystaan because lama soo diyaarinin waxaan ka soo hadalnay wiigii hore saad cunugaaga ama ilmaheena u caawin lahayn number 2 waxaan ka soo hadalnay wiigii labaad saad u arki lahayd dhanka uu ka fiican yahay wiigan waxaan ka hadlaynaa haddii Rabbi raali ka dhigo not only inaad cunugaaga jeceshahay kaliya maahane saad ugu dari lahayd qiimo ugu dari lahayd inaad cunugaaga jeceshahay waa hibo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa gift Allah ku siiyay dhammaan waalidku ilmahoodu waa jecel yihiin intooda ugu badan inta maskaxdoodu fadhido aan balwad ama drugs isticmaalin haddaba seed cunugaaga jacaylka aad u qabtay ugu dari kartaa qiimo ugu dari kartaa see u yeelan karaa cunugaaga qiimo in badan jacaylka ay hooyooyinku ilmaha u qabaan awgood baa cunuga waxa ay ka saartaa xerada ka saarta waxay u diidaa cunugaasu inuu tarbiyadii iyo wixii loogu talagalay uu barto amnaad kama hadlayo tarbiyada macalinka raba inuu dilay iyo kama hadlayo tarbiyada adkaysiga tarbiyada dadnimada tarbiyada maaragtay u baahan inuu cunugaan u fahmo haduusan saas yeelin inay saas dhacayso all waxay u baahan tahay arintaas ayada ah in waalidku uu fahmo yes cunugayga waa jecla laakiin berri jacaylkayga kaliya meel ma geynayo waxa meel geynaysa inuu leeyahay qiimo iyo qofnimo value dadnimo inay ku darsan tahay inay jirto wax ku duugan ama ku shuban ama laga heli karo oo dadnimo ah kalkacaylka aan qabno awgeed baa waxay kalifaysaa ama waalidku kalkacaylka ay u qabaan cunugooda awgeed inay u diidaan ama aysan yeelin inuu cunugii maro ama processeski loogu talagalay inuu maro so number 1 ha u arkeen ama ha ka arkeen cunugaaga kaliya jacaylka iyo guusha kaliya ha ka arkeen oo number A buu keenay iskuulka nana hadii la siiyo ma sugi karaa berri inuu cuno markuu 5 sano jiro $100 ama $50 inta siiso value-ga delayed-ka ama inuu sugo ma samayn karaa inuu asagoo 7 sano jiro waxa uu aaminsan yahay ma drawing-ka uu sameeyay inuu dadka ka hor hadli kara adiga gurigaaga ma ku bartay all those things waa qiimo laga rabo waayo cunuga la'aanteed in uusan hadhowta jiri doonin oo aadan u baahnayn cunug aan diintiisa iyo magaciisa iyo dadnimadiisa iyo qofnimadiisa aan qiran karin inaadan korin oo aadan dhihin ma cunugayga waa cabsanaya haddii lagu dhaho cunugaaga camping wax la yiraahdo Mareykanka iyo malaas laga isticmaalo ah cunuga inta xaafada laga saaro training lagay ama Soomaaliya keento oo kale oo aadan u keenin ama Afrika keento oo kale aadan u keenin dad caynayo DC dhahay laakiin aad u keento dad homeless-ka tusaya baahida tusaya inuu hadlo tusaya inuu wax qiimeeyo tusaya ma cunugayga ma geen kara meesha saas ma yeeli karo waa liiga dilaya waa liiga yeelay dan marka dhalu noqonaya you only give him a love iyo kalkacayl iyo protection waxaad ilowday inaad qiimo ku darto qiimahaas ee qofka loogu daraa but just think about not only nolosha maanta billionaires ay sameeyaan sida nabi ilaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam intuusan nabi noqonin asoo ogoona adeerkiis ugu daray qiimo baadiya loo diray waa ilmaha baadiyaha loogu diri jiray adkaysi dadnimo qofnimo inuu noqdaa loogu diri jiray cunugaaga haddaad lagu dhaho 5 maalmood waxaad geysaa waxaan aqaan nin dhalinyaro ka shaqeeya camping ilmaha geeya dadka madowga ay dadkaas dhan camping bay geeyaan camping inaad cunugaaga geyso inaad wax kale waxaa leedahay ma cunug waa saas uga noqonaa saas uga yeelaa saas uga waa because waxaad aaminsan tahay inuu dhalay yahay oo inuu kaa jabo aad aaminsan tahay waxaa rabtaa inuu guulaysto waxaad haysataa jacayl laakiin value iyo dadnimo ma rabta inaad ku darto that's why 20 jir 50 jir ilma joogay basementiga hooyadooda iyo ayadooda ay degan yihiin oo aysan rabin inay u shaqaystaan because lama soo diyaarinin waxaan hore uga hadlay ilmaha oo 16 sano markuu gaaro oo high school ka bilaabo inaad McDonald's ka geyso maqaayada adeerkiis Afrika jooga inaad geyso dukaanka ayadiis ama qof inaad u raadso dhahdo Afrika schoolka aad ka imaato meesha 2 saac ka shaqeynaysa lacagta aad ka shaqeysay haddii $1 lagu siiyay haddii $5 lagu siiyay haddii $10 meel haddaad dhigato inteedoo kale aan kugu diray that's how the yuhuuddu ay samayso ama dadka hormaray ay sameeyaan why waxa la tusay cunugan lacagtan qiimaha ay leedahay not only ma cunugan maanta oo dhan iskuul ku maqnaa ma aragtay haduusan waxba cunin oo seexanin waxba ma samayn karo waa jacayl
اوكي وانا تعيش عنقاغ اوكي ما عينايا جعلك لكن جعلك نوعاas oo kala naanaab soo saaraya waxaan jirin uu soo saaraya laakiin waxaad u baahan tahay value inaad ku darto qiimo inaad cunugaaga ku darto adadkaysi inaad ku darto dadnimo inaad ku darto haddaba see ugu dari kartaa ha qiimaynin number 1 cunugaaga jacaylka aad u qabta kaliya iyo successka iyo guulaha uu gaaray ha qiimaynin waxaad qiimaysaa oo aad cunugaaga number 1 qiimaysaa qiimo ma ku daraysaa dadnimo ma ku daraysaa dad hor istaag ma leeyahay inuu adkaysto oo safar gala ma samayn karaa ma aragtay ma yeeli karaa all those things waxay samaynaysaa inuu cunugaaga adigoo aan ahayn waarid khayr mazuul aan ahayn oo aanan iskaga tuurin cunuga meel walba waxaan arkaa ilmo yar yar oo qurbaha laga keenay oo Afrika iyo meel inta la geeyay damage la soo gaarsiinayo la leeyahay DC iyo waxyaabo la mid inaad dadka aad u geynaysa laftigooda aad maskaxdooda iyo aqligooda ka dhisto oo aad dhahdo ha ku motivate garaynin cunugaaga ama ku dhiirigelinin only success ka kaliya inuu cayrsado waxaad ku dhiirigelisaa cunugaaga ama aad ku motivate garaysaa value-ga nolosha maanta qodbada markaad tagto oo salaada qodbada la akhriyo maxaad ka fahamtay markuu fahmo imagine sheekh istaagay hooyo courage ay leedahay arintaas ka war ma malaynaysaa inaad istaag no ma istaagi karo that is the sign inaadan ilmo khayr qaba ku korsanaynin Mareykanka that is the sign that's a huge statement that is the sign ilmo khayr qaba in badan inaadan ku korsan America oo aad u baahan tahay inaad ka waloosho why hadduusan cunugu yac iska dhigi karin xaaladiisa halis waay waxaad u baahan tahay inaad cunugaaga barto earliga inuu yac dhihi karo in drugs-ka lagu qasbayo yac u dhihi karo inuu hadli karo inuu asagoo isdifaaci karo laakiin ma hadli karo dadka kama hor hadli karo because waa culture anaga aan leenahay waay dhaqan anaga aan leenahay waay qof weyn oo in badan aan dadka ka hor hadli karin laakiin qurbaha riski waay waa la buligaraynaa cunuga robotkiisu ma fiicnaanayo waxaad u baahan tahay inaad dhahdo khayrka cunugaaga inuu ku jiro inuu asagu isdifaaci karo value-giisa difaaci karo nad inuu isku difaaco inuu dadka feero oo violence sameeyo that's not difaacan ka hadla inuu dhigi karo no we don't do this and hadda koor manaan bas waday waxaan arki jiray gabdho yar yar oo ma aragtay khamaar wata baska khamaar la soo koray markay khamaarka la soo koraan bay markay gaariga soo galaan bay iska siman timihii waa u hagaagsan yihiin arintaas aad ay baadar garays waaga dambe waxaan weydiiyay markay dhowr qofooda waxaan weydiiyay gabdho yar waay au samaysaa saas because waxay dhaheen dadka madow waxay noo malaynayaan dadka cad inaanaan timo qurux badan lahayn we need to show them imagine the whole khamaar ad gabadhaada u gelinayso ama khamiiska wiilkaaga u xirnaa ama diintu hadday u ekaato inay dhaqan tahay ka war ninaan saaxiibanahay oo public speaking-ka sameeyo oo jooga Egypt jooga baa wuxuu iga sheekeynayay macallimiin si maaragtay gaabagaaba ee ku faafiya diimaha baa wuxuu dhaheen ilmaha waxay ka dhaadhiciyeen Nabi Ilaahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam is a founder Islamic religion is the founder of Islamic religion. It's the same way Steve Jobs who is Apple founder, Muhammad is the founder. He's a very successful founder or found out great. Cunugaaga waa inuu fahmi karo waa hadalka dalabta leh oo dhihi karo no Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam is not founder maaha Ilaahay baa doortay subhanahu wa ta'ala it's the Rasul Ilaahay soo diray is not founder seebu ku fahmi karaa hadduusan hadalka dhageysan karin oosan debate gareyn karin oosan doodi karin all successful kids-ka ilmaha nolosha ku guuleystay waxa la geeyaa debate waxa la geeyaa rafaad waxa la geeyaa hawsha inay ka hadli karaan oo hawshooda ay sameyn karaan inay public speaking ka hadli karaan so you need to inaad arintaas aad iyo aad uga dagaalanto oo aad dhihi karto number 2 always increase waxaad increase garaysaa oo kor u qaadaa cunugaaga value-ga aad ku darayso ha ku qiimeynin meeqa shahaado wataa waxa ku qiimeysaa meeqaad value ku dartay Sacuudiga ma tagay Nabi Ilaahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam maaratay sunnadiisii jidkii uu maray iyo rafaadkii diinta ma arkay qof luqadda Ingiriiska yaqaan ma raacay ilmo yar yar waxa jira la raaciyo culimo aan luqadda garanaynin markay dadka isburtaan waxay leeyihiin why these people are like this why they killing each other wixii aad cunuga u geyso dhan ma fahmin waa inaad raaciso ama u raaco qof u fahmi karo dadkan waa jidbaysan yihiin qaarkood waxa laga yaabaa 20 sano 15 sano 40 sano inay lacagta meeshaan ay ku yimaadeen aruurinayaan sax ma aha inaad qof kale ku dhacdo laakiin adigana u nasteexino you need to inuu jeerniga maro oo jeerniga ka soo qaato dad hasal gareynayo islaynayo inuu ka fahmo maasha ay leedahay macaanka ay leedahay that is the value aad u baahan tahay inaad ku darto the last one oo ayadana muhiima cunugaaga ha fahmo education-ka iyo degree-ga iyo waxbarashada iyo success-ku inaysan the only qiimaha ahayn dadku inuu qiimaha yahay
waxaa noo soo baxaya marka arrintaa fahansiiso siyaasi dadka qiimeynaya siyaasi dalka qiimeynaya siyaasi diinta qiimeynaya siyaasi aan qiimeynin ama ganacsato aan qiimeynaynin only inuu billions of dollars ka sameeyo guriga uu dhisay hortiisana qashin yahay light inuusan guriga hortiisa u dhisay uusan lahayn guriga uu Soomaaliya ka dhistay dadka masaakiinta oo degan oo dhan inuusan xataa leer u shidi karinin oo uusan motorka asagu qiimeyn karin uusan meel kasto ay joogaan dadka lacagta la qayb badan oo kamid ah waxa qiimo la leh oo yaraantoodii qalbigooda galay I want to be that guy oo building ka dhisto dhaqaalaha sameey waxba igama galin dadka kale so show cunugaaga early in aad tusto aad uga sheekayso success-kiyo guusha maahan jeebka success-kiyo guusha maahan darbiyada waxa kuugu dhagan success-kiyo guusha waxa waaye how many people aad caawisay sida ugu fiican oo aad u tusi karto liibaan xujaalin liidaadan ka bartay waxa way uga sheekay cunugaaga struggle-ka aad soo martay let your kid know the struggle-ka aad soo martay dadkii ku soo caawiyay markaad uga sheekayso struggle-ka aad martay wuxuu fahmayaa inuu noloshan uu ku jiro struggle ka horeeyay oo waalidkiis soo maray uu jiro oo waalidkiis ay soo sacrifice gareen so I hope and pray in an cod iyo ma aragtay dhaliilaba isku ka daray si aad arinta u fahanto oo aad u fahanto hawshay tahay baxay tahay marka gabagabada cunugaaga kalkacayl kaliya ha seenin guul kaliya ha uga sheekaynin qiimo ku dar qiimaha aad ku darayso whatever adiga aad u taqaano inuu dadka ka hor hadli kara qiimo way dadka ka hor hadalka waxaan arkaa ilmo badan oo lagu duufsaday inaan alla jirin subxaanahu wa ta'ala because waxay aaminsanaayeen ma u yaqaanaan inay difaaci karaan inuu wixii difaaci karo inuu hadli karo number 2 cunugaaga u samee ama u yeel always inaad increase garaysa qiimaha qofnimadiisa inaad increase garayso antan ugu dambaysa oo ugu muhiimsan ha u tusid cunugaaga only dhaqaalaha iyo shahaadooyinka iyo ma aragtay all those things inay guulihiin only inay guulihiin waxaan u leeyahay ma denied garaynayo inay guulihiin wax fiican waay laakiin guul ka sii weynaa jirta guul looga raba in looga gudbaa jirta oo ah inuu qiimeeyo inuu dadka qiimeeyo inuu diinta qiimeeyo inuu fahmo qiimuhu nolosha ma aha waxa aad qabsatay iyo waxa aad haysata ma qiimuhu nolosha waxa way quluubta ibn aadanka saad u ilaaliso dadka saad wax u tarto ana gabagabada iyo goolka ugu dambeynaysan waxa way ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa ta'ala inuu nagu kaalmeeyo oo nagu caawiyo hawshaas ayada ah waxaan alla ka rajaynayaa inaan fahano oo alla na fahansiiyo dadka ayda training siiyay inaan ilmaheena training iyo dhaqankooda hagaajin karno insha Allah